saaxiib yar soo dhawaada waxaan rabaa inaan idila wadaago xogta aan ka soo saaray pageka officialka ee canada.ca khaasatan qeybta IRCC oo ah qeybta qaabilsan immigration waxyaabahaas. Canada habka u shaqeysa waxa weeyaan dalka markaad joogin ayaad rabtid inaad soo gasho dhammaan filashaada waxaa ka mas-uula IRCC. markay IRCC ku approve garayso ee aad Canada soo gaadho hay'ad la yiraahdo CBSA Canada Border Safety Agency ayaa waxa iyaduna awood u leedahay inay ama dalka ku soo dayso ama ay ka celiso. Hadda waxaan eegaynaa fiisaha international student sanadkii 2022 iyo sidoo kale 2023 tirada guud ee soo dalbatay student visa imsa la approve gareeyay. Waxa laga yaabaa inay 2 milyan soo dalbadeen oo 2 milyan baa la approve gareeyay. Marka approve-ka muhiim ah. dalka India kaliya wuxuu soo dalbaday 2022 318,000 oo visa. isla adana sanadkii ku xigay 2023 wuxuu soo dalbaday 325,000 visa. totalka graankii loo aqbalayna soo galaa waxay noqonaysaa 640,000 oo visa. waa 2 sano oo qura ardayda ku soo gashay student visa. I believe waxay ka badan tahay Soomaali isku wadagee 1970s kii ilaa maanta wuxuu soo galayay 600,000 ma gaariyaan. I believe xitaa 200 ma gaariyaan haddii aad xogta aysan ila wadaaga. iyaguna 2 sano gudood waxa ku soo galeen 700,000 oo arday ah almost ku dhow. Nigeria waxa weeyaan waa Indianka Africa. Nigeria Africa hogaaminaysa waxa soo galay sanadkii 2020 39,000 balse sanadkii ku xigay 2023 waxa soo galay 90,000 almost wixii la bilaamatay 3 times. Dhaatadu way badan tahay. Africa waxa kaga jira Nigeria, Algeria, Ghana wadamo badan. haddaba si aad u apply garayso student visa number 1 waa luqad. wax walba waxa ka horeeya luqadda. just haddaad awood u saartay inaad luqadda aad IELTS-ka level 8 soo gaadho, everything else is very simple. Even you never know inay luqadda level 8 gaarsiisan tahay, balse waxaad u baahan tahay you have to go closest exam test kadibna imtixaanka qaado, see what level you are. kadibna waxaad awooddaa inaad inta wax ka dambe aad dhisto aad ogaato intaad u baahan tahay inaad gaadho. saaxiib yaal waad ku maasantiin daawashada muuqaalka. hadduu muuqaalku fadlan ku soo gaadhay asxaab badan la shirkade sidoo kale page-kana soo follow garay si aad macluumaad badan u hesho. waxaan idin ballan qaaday inaan maalin walba idin soo gudbiyo xogta ku saabsan hababka ugu fudud ee Canada lagu iman karo, hadday waxbarasho noqoto, hadday shaqo noqoto, hadday temporary visa noqoto, whatever. page-ka follow garay. maalin wanaagsan.